muxaadarooyin kala duwan ka daawo TBN Tawfiiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiiq Broadcasting Network. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku jirnay suurة البقرة. waxaan ka bilaabaynaa ayadda 47. waxaan ku jirnay reer bani Israa'iil ayaa ilaahay la hadlaya subxaanahu wa tacaala oo diiday nabiga rumayntiisa calayhi salaatu wassalaam, iyagoo ahaa dadka ugu aqoonis badan nabiga calayhi salaatu wassalaam. yaa bani israa'iila, reer bani israa'iilow. israa'iil waxaa la dhihi jiray yacquub, marka yacquub ilmihiisiiyo. yaa bani israa'iil ilmihiisiiyo. udkuruu xusuusta nicmatii nicmadeyda allatii ancamtu aan nicmeeyey calaykum adinka dushiina, wa anii aniga fadaltukum inaan idinka fadilay xusuusta cala alcaalamiina caalamka ummadaha kale inaan idinka fadilay. ogaada ummadaha waa loo jeeda yani caalami zamaanikum, zamankiinii inaan idinka fadilay, waqtiyadiinii inaan idinka fadilay ummadaha kale. ogaada oo nebiyaashii iyo rusushii aan dhexdiina kasoo saaray oo aada ahaydeen ummadda ugu nebiyo badan. ama ummadahaba waa idinka fadilay oo waxaa laidinkaga fadilay in nebiyaashii rususha ugu badan adinka laydinka soo saaray, kutubta ugu badanna adinka laydinku soo dejiyey. marka ilaahay subxaana wa tacaala taasuu xusinaya. laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay inay ummadda nebi maxamed ummadaha ugu fadli badan tahay. taa waa laisku waafaqsan yahay. wataquu ka cabsooda yowma maalin laa tajzii aysan gudi karaynin nafsu nafsad can nafsi nafsad kale xaggeeda shay-an waxba, walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa nafsada xaggeeda shafaacatun shafaaco, walaa yuukhadu aan laga qaadaynin minhaa nafsada xaggeeda cadlun furasho, walaa hum aysan ahayn yunsaruuna kuwa loo gargaaro. yaa bani israa'iila, reer bani israa'iilow, udkuruu xusuusta nicmatii nicmadeyda calaykum dushiina, nicmadeyda allatii nicmadaasoo ancamtu calaykum aan idinkugu nicmeeyey. nicmada hadda wax alaala wixii aabbayaashood la siiyey kuwaan hadda jooga nebiga waqtigiisa calayhi salaatu wassalaam, iyagaa khitaabka hadalka ku socdaa. laakiin wax alaala wixii aabbayaashood loogu nicmeeyey iyo wixii la siiyey awowayaashood oo dhan waa nicmo iyaga loogu nicmeeyey la mid tahay. saasaa ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlaya. yaa bani israa'iil, reer bani israiil, udkuruu xusuusta nicmatii nicmadeyda allatii nicmadaasoo ancamtu aan nicmeeyey calaykum dushiina. waxaa nicmo ah idinkugu nicmeeyo xusuusta. waxaan rabaa nicmada nebiga calayhi salaatu wasalaam in la xusuusiyo. nicmadan ha ku kufrinina. nicmadana waa nicmooyinka ilaah idin siiyey ay ka mid tahay. ancamtu calaykum wa anii aniga fadaltukum inaan idinka fadilay xusuusta
cala alcaalamiina caalamiinta ummadaha kale inaan idinka fadilay xusuusta. saasa ilaahi subxaana wa tacaala. caalamka waxaa la yidhaahdaa waa yani haddii la yidhahda caalim waa qofka cilmiga badan leh. waxaa la yidhahda ra-aytu caaliman min annaas, waxaa loo jeedaa yani ra-aytu caaliman, nin caaliman arkay waa la yidhahda qofka caalimka. ama caalam waa dadka, caalamu nnaas hal arkay, yani waxaa loo jeedaa farabadnida. yani saasna loolama jeedo, waxaa loo jeedaa yani alcaalam waxaa la yidhahda kulu mawjuudin siwa allah, wax alaala wixii ilaahay ka soo hara caalam la yidhaahdaa. marka wax kaloo dhan waa soo hoosgalayan ereygaas marka lagu fasiro. yani waanii fadaltukum cala alcaalamiin. wataquu ka cabsooda ilaahay, wataquu ka cabsooda yani ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala wataquu ka cabsooda yowman maalin, ka cabsooda waa maalinta qiyaame, laa tajzi ay gudayni nafsun nafsad can nafsin nafsad kale xaggeeda shay-an waxba aysan ka gudaynin. yani waxaa la yidhaahdaa laa tajzi nafsun can nafsin shay-an, nafsad kale wax u qaban kartaa aanay jirin, yani wax ka culus ma jiraan. marka wax kuu qaban kara aysan jirin, keligaa aad tahay oo nafsad walba ayada wax ku filan ay haysato. marka wax ka weyn mal markaan wax kuusoo gurban karaan jirin, waxaada wax ka qaban kara aysan jirin. dadkiio joogo oo balaayiin ah aan waxba laga qaban, waa culays aada iyo aada u culus. ilaahay marka wuxuu leeyahay laa tajzi aysan gudayn nafsun can nafsin shay-an, waxba aysan ka gudayn nafsad kale. ay laa takfi wa taqdii, yani waxaa la yidhahdaa aysan waxba ku taraynin. sittiin haasa wujjira dhagaytiiteenaaken kan daawwachu jirtu kun TBN. waxaa la yidhahdaa jaza canii hada alamra yujzi ay qadaa, wuu iga guday, waa iga kaafiyey, arinkan ayuu iga qaaday. yani ayaa la yidhaahdaa. marka wاjtazأtu bالshayi ajtaziu ay iktafaytu ayaa la yidhaahdaa. iktafaytu yani marka waxaa loo jeedaa maalin aan nafsad waxba u taraynin, wax ay ka kaafinaysa aysan jirin, saasaa loo jeeda. shay-an shay aysan waxba u tarin. shayga waa nakira, waa soo mareen ayadii hore. shay-an yasiiran xaqiiran, wax yar xataa oo liita, waxay doonaan ha noqday aysan u tari karaynin. yowmu laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-an. maalin waalid wax dhalay uusan ilmihiisi waxba u taraynin, wixii uu dhalayna waalidkiis uusan waxba u tari karaynin. maalintaa ka cabsoodu ilah leh subxaana wa tacaala. yowma laa tajzi nafsun can nafsin shay-an walaa yuqbalu aan laga aqbalaynin minhaa nafsadii xaggeeda, yani walaa yuqbalu aan laga aqbalaynin haddaan naf kale wax kuusoo gudbin karin oo wax kuu tari karin, aan laga aqbalaynin. walaa yuqbalu minha aan laga aqbalaynin nafsadii shafaacatun, shafaaco aan laga aqbalaynin, cid kale oo u hadasha oo qofkaas yani qof kaloo yani kaala hadla ama kuu shafeeca aan laga aqbalaynin. walaa yukhadu aan laga qaadaynin minhaa nafsadii xaggeeda cadlun furasho, walaa hum aysan ahayn iyagana yunsaruna kuwa loo gargaara. cid kaloo banaanka uga imaanayso u gargaaraysan aysan jirin. wax allaala wixii mucaawana ay waxtar ahoo dhan ayay ka xirantahay. marka waa nafsadaada oo keliya maalintaa ka cabsa ilah leh subxaana wa tacaala, gaar ahaan reer bani israiil tihiin. waxaa meeshan la sheegi doonaa wixii ay isla soo mareen nabiyullaahi muusa iyo ummadan reer bani israa'iil ayaa ilaahay ka sheekeyna caza wajal. wadkuruu xasuusta nicmooyinkeyna ka mid tahay. wadkuruu xasuusta id goor najaynaakum aan idinka badbaadinay min aali fircawna, fircoon aalkiisa aan idinka badbaadinay. yasumunakum iyagoo idin dhadhansiinayo suuءa alcadaabi, cadaabka kiisa xun. muxuu yahay cadaabka kiisa xun?
يذبحون وحي قورعاين أبناءكم ويلشينا ويستحيون وحي ريباين نساءكم هوينكينا وفي ذلك متكاس لحدي سنة بلاء امتحان أياء هذي من ربكم ربكين حقي سكا هذي امتحان كاسو عظيم وين reer bani israa'iil nabiyullaahi muuse intaan loo soo dirin waxaa gumaysan jiray reer fircoon oo masar xukumayay ayaa gumaysan jiray waxay samayn jireen wiilashana way gowrici jireen hadduu wiil u dhasho gabdhahana way reebi jireen si ay ugu adeegaan marka ummad saasay ahayd oo wiilasha laga gowraco wax ka xun ma jiro waa cadaabka kiisa u xun ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu watacaala وإذ نجيناكم واذكروا حصوصا إذ قر نجيناكم أن إذن كبت بادني من آل فرعون دتكيسي أن إذن كبت بادني يصومونكم وحي إذن أدنسينايين سوء العذاب عذاب كيس وحن أي إذن أدنسينايين يذبحون وحي قورعاين أبناءكم ويلشينا ويستحيون وحي ريبايين أو أي باقي يلايين نساءكم هوينكينا ayay reebayeen gabdhahay reebayeen ka tagayeen wiilashina waa gowracayeen umulisooyin u qorna ciidan ah reer bani israa'iil wiil hadduu u dhasho waxay ahayd in la gowraco waa la soo ogaanaya war hadday leedahay maalinkai ay dhasho canuga oo laga umuliyo canuga haddii la fiiriyo wiil hadduu yahayna waa la gowracaya hooyadii horteeda lagu gowracaya bihi gabar hadday tahayna waa la daynaya subxaana allah waa yani xanuun meesha u dambeyso وعذابكن أحن ساسي كسمين جل لأن فرعون وحلو شيء ويل كدلنا دونه reer bani إسرائيل أيها بقرطويدا بربرين دونه مركا وحوي ويل كوادان جورع محاور دلنا قبله نوار ربي ويل شنو كجورع إلهي سبحانه وتعالى الله عز وجل عذاب كاسة إلهي إذن كبد بعديه وفي ذلك متكاس لحدي سنة أو الويلشين إلا جورع قبلها لسيد دايو بلاء امتحان أيها هذا ومن ربكم ربيين حقي سكاء هذا امتحان كاسو عظيم وين وامتحان ربي إذن كل عقابي سبحانه وتعالى وآدي وين الله وحوله سبحانه وتعالى أرنك والنعمة إلهي سبحانه وتعالى وإذن كبد بهذه وين حسوستها وين حسوستها أبياشين ayaa saa looga badbaadiyay iyagoo fircoonna ilaahay burburiyey adinkana arladii lidin dhexeshiiyey wa awrathna alqawma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa magaaribaha alatii baarakna fiiha waxaa la dhexalsiiyey dhulkii baytulmaqdis iyo shaam ayaa la dhexalsiiyey waxaa la burburiyey fircoon iyo cadowgooda iyagoo u jeedo indhahooda ay daawanayeen ayaa ilaahay burburiyey subxaana watacaala meelo kale quraanka lagu sheegi doona qisada lagu faahfaahin hadda waa la soo duuduubaya wadkuru xasuusta waa nicmo kale oo ilaahay xusuusinaya subxaanahu wadkuru xasuusta id goor faraqnaa aan kala dilaacinay bikum idinka albaxra badii aan idin kala dilaacinay oo idin kala geynay fa anjaynaakum aan idin badbaadinay wa aqraqnaa aan biyo ku halaagnay آل فرعون ددكيسي أنبيكم ما شيني وأنتم إذنكو تنظرون في رنايو إذنكو أجيدة وداونايو أن هرتينكو هلاقني سبحان الله تنوى النعمة كله مالك الوفا فاهين دونا إلهي وحده سبحانه وتعالى وحال إذن كبت بادين فرعون وإذن سور رعدي والله صوصا أنه موسى بني إسرائيل سو بحيي badii baa horey ka soo celisay fircoon iyo ciidankiisa waxba ka maqnayn iyo wasaradiisa iyo dowladiisa iyo kulli waa la soo bixiyay soo raacdeeyeen markii ay badii qarkeeda yimaadeen fircoonna ay arkeen falama tara aljamcaani qaala asxaabu muusa inna lamudrakuun waana la qabtay bay yiraahdeen ilaahay markaa subxaanahu watacaala iyagoo halkaa joogo qaala kallaa ina macii rabbii sayahdiin ayuu yiri rabbi ee la socdo oo hanuunin doono meel ii bixin doono ayaa badii ilaahay u kala dilaaciyay subxaanahu watacaala 12 jid ayaa looga furay badii biyihiina dhinaca lagu xiray labadii dhinac waxaa laga dhigay buurar waaweyn oo kale ayaa biyihii laga dhigay markaas 12 jid
ayaa looga jeexay 12 qabiil markaas qolo walba jidkii mareen oo ay uga baxeen badii ilaahay subxaanahu wa tacaala geeska kale tageen markay geeska kale istaageen fircoon iyo ciidankiisa yaa soo galay waa la soo galiyay waa la soo waday mar hadduu fircoon ka socdo wax haraay ma laha ciidankiisii hogaamiyaashiisii wax allaala wixii ka dhaqaaqay boqortooyadu dhan ayaa socda isagii aan hogaaminayo markay badii qolada xaq ka baxeen reer bani Israa'iil iyo Nabi Muuse ayaa qoladana soo gashay Nabi Muuse u shula dhacay bihi inuu isku daro damcay markii iyagana jidkoodii soo qaadeen daba socdaan markaas ay watrukil bahra rahwan innahum jundul mughraqun faraha ka qaadanay markay galeen ay ku soo dhamaadeen kii u horeeyay uusan ka bixin kii u dambeeyay uu soo galay ayaa la isku sii daayay badii iyagana qarka kale taagan yihiin oo way daawanayaan oo u jeedaan markaas meesha Ilaahay ku halaagay quraan fircoon iyo ciidankiisa halkaas Ilaahay waxba uga reebin azza wa jalla marka rabbi subhanahu wa ta'ala waxa leeyahay waa nicma Ilaahay nicmadiisa cadawgaadi inta ku halaagay inta ku baabiinay wiilashaadii gowracay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta lagu soo badbaadi hortaadii Ilaahay ku halaagay subhanahu wa ta'ala iyagoo fiirinay waa nicmo Ilaahay xusuusta subhanahu wa ta'ala وإذ قر فرقنا أنكلا جيني فأنكلا بحني أنكلا شاحيني فرق الرأس ومدح الشيء حديثة مركت ما حاجة الله كلا وحيه مركا فرقنا هذا وحوا كلا جيني بدي أنكلا دلعنا أو بدنا عن جيني فرقنا أنكلا جيني بكم إذن كالبحر بدي أن إذن كلا دلعنا وإذن كلا جيني فأنجيناكم وإذن بدباديني وأغرقنا وحن هلاقني آل فرعون غير فرعون أيان هلاقني وأنتم إذنكو تنظرون في رنايو إذنكو أجيدة وإنه نكو دعوانايو أيا إلهي هلاقي سبحانه وتعالى نعمة حسوستا نعمة إلهي إذن قال حسوستا عز وجل ونعمة يعني آدي آد أوين وإلهي نعموينكي سكمد mid kale xusuusta واذكروا حسوستا إذ قر وعدنا أن لبلن موسى نبي موسى 40 ليلة أفرتن هبين كذب أن لبلن يعني أن لبلن الله سبحانه وتعالى ثم مركا كذب اتخذتم واحد سميستنا العجل دبيجي من بعده كذاشي ساد إله كدقتين وأنتم إذنكم ظالمون ظالمين ثم مركا كذب عفونا واعفنا عنكم إذنك حقنا من بعد ذلك متكا كذب لعلكم واحد مدنتين تشكرون إله إن تكشك رسان سبحانه وتعالى أرنتنا وأرنك لا إله سبحانه وتعالى وحوير واذكر حصوصتا يعني النبي الله موسى عليه السلام أيال الله لما أفرتن بري كذب وبحال كتابك التوراة الذين سينا أو إمو جبل طورة إلهي كل الله سبحانه وتعالى مركي ونبي موسى ماشي آدي أي وحي عابدين قداشي سيدبي عابدين إله كدكتين يقول لقوم مقينيها كتابك إلهي حقي سلقسو دجي سبحانه وتعالى ونبي موسى قوم مقينيها أي وحي عابدين دبي قداشي سعابدين والاسكعب فيها دلا ما هلاقين إلهي سبحانه وتعالى Akan gabbaraman Allah malenjiru Khawan ume hunda firesani hiru Hojinti yayamu ilmana ma hunda Gabbarti birarra khara rabbi gudda Jirun ad-dunya tumbarta sobati تقيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي واذكروا حسوسا إذ قر وعدنا يعني أبو عمرو وحاخر وإذ وعدنا ولا أخريا وإذ وعدنا إذ ألف أسم كجرين
ama yani marka waacadna haddii la yidhaahdo yani waxaa la yidhaha almuwaacada inamaa takunu min albashar, yani ballamida la ballamida waxay ka ahaata bini aadamka xaggiisa. faama min allahi fainama huwa tafarudu bilwacdi, waa ilaahay wacdiga ayuu la keliyahay alla subxaanahu watacaala. calaa hada wajadna alqur'aana wacadakum wacda alxaqi, qur-aanka waxaa ku arkaysaa inuu leeyahay in allaha wacadakum wacda alxaqi, ilaahay wacdi xaqa ayuu ilaahay idin ballan qaaday. waid yacidukum allahu ixda daa'ifatayni, yani saas oo kale. yani marka waxay tusinaysaa hadda loo yiri muwaacadada waxaa loo yiri, waxaa layidhi liana almuwaacada tufiidu alishtiraka fi asli lficli, in la wadaagsaday ayay keenaysaa. marka saasay culimadu yidhaahdeen. waid waacadna wadkuruu xasuusta id goor waacadna aan la balanay muusa nabi muuse. yani waacadna waa min baabi almuwaafaca walaysa huwa min alwacdi walwaciidi fi shay, inama huwa mawciduka yowm اljumca. yani waa la ballamid, ballantaada waa maalinta jumcada amsaad u tiraahdo kale. yani ama mawciduka mawdicu kada, meeshaan kula ballansanay waa inta maalinka, waa meel heblo saas oo kale. marka yani marka waacadna aan la ballanay muusa nabi muuse 40 leylatan 40 habeen, ay tamaama 40 leyla, 40 habeen markay dhammaatay kadib ayaan la ballanay. waxaa la yidhaahdaa 40kaasna waxay ahayd bisha dilqacda iyo 10 dilxija, saasay u badan yihiin mufasiriinta badankood. yani waxaa la yidhaahdaa habeenka hadda waxaa loo yiri maalinta loo hormari, habeenka loo hormari, lanna kalendarka islaamka habeenka horeeyo iyo maalinta. yani habeenka caawa markay jumco tahay beri ay jumcaha maalinta, marka habeenka horeeyo habeenku raacsan yahay. marka 40 habeen ayaan kula ballanay ayuu alla yiri subxana, si loo siiyey kitaabkii towraad ahaa. uma markaa kadib markii ilaah la ballamay subxaana watacaala, ittakhadtum waxaad yeelateen, waa markii hadda badii laga soo badbaadiyey. uma ittakhadtum waxaad yeelateen alcijla dibigii min bacdihi muuse gadaashiisa ilaahan ilaahaad ka dhigateen, wa antum idinkoo daalimuuna daalimiin ah. uma markaa kadib cafowna cankum, waa idin cafinay. cafowna waa cafina cankum idinka xaggin, min bacdi dalika markaas aad samayseen kadib, kaas oo dibiga ilaah ka dhigashadiisa aad samayseen kadib ayaan idin cafinay. lacalakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna ilaahay inaad ku shukrisaan subxaana watacaala, si aad ilaahay ugu shukrisaan alla subxaana watacaala. taasna waa nicmo ilaahay subxaana watacaala ilaahay uu ugu nicmeeyey reer bani israa'iil. weli waxaa socdo ilaahay subxaana watacaala la hadalkii reer bani israa'iil oo ilaahay la hadlaya subxaana watacaala. wadkuruu xasuusta id goor qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina rumayn mayna laka adiga kuu rumayn mayna waxa aad sheegayso xataa nara allaha ilaahay ilaa aan ka aragno jahratan si cadaan ah, ilaah aan u aragno si muuqata aan u aragno alle. faakhadadkum waxaa idin qabatay assaaciqatu biriqdii ama jacdii, wa antum idinkoo tanduruuna fiirinayo. uma markaa kadib bacathnaakum waa idin soo noolaynay min bacdi mowtikum markaad dhimateen kadib. lacalakum waxaad mootihiin tashkuruuna ilaah inaad ku shukrisaan subxaanahu watacaala. wadallalnaa waxaan haraynay calaykum dushiina alghamaama daruurti, waanzalnaa waxaan dejinay calaykum dushiina almanna malab cireed iyo wasalwa, yani shimbir la solay. kuluu cuna, waxaan idin ihi kuluu cuna, waqulnaa waxaan idin ihi kuluu cuna min طayibaati maa rasaqnaakum, waxaan idinku irsaaqnay kiisa xalaasha ah cuna. wamaa dalamuuna nama aysan dulmin, walaakin kaanuu waxay ahayn anfusahum nafsadooda yadlimuuna kuwa dulmiya. waa arin kale. yani ilaahi subxaana watacaala waxaa nabilaahi muusa la yiri soo xula dad, ilaahi subxaana watacaala ayaa la ballamay meeshii buurtii lagula hadli jiray nabi muuse. marka 70 nin oo xul ahoo doortay,
toddobaatankaasuu kaxaystay meelo kale qur-aanku lagu sheegay marka toddobaatankii markuu kaxaystay oo uu geeyey jabal tuur ilaahay buu la hadlay nabi muuse calayhi salaam isagana ilaahay ku khaas yeelay inuu toos ola hadlo alle markuu toos ola hadlay ayay waxay yidhaahdeen arina allaha jahra waxaad na tusisaa ilaahay na tusi aan aragno yacni daruurtii baa la dhexgeliyay meeshii loo waxyoonayay ilaahay buu la hadlay subxaana wa tacaala markaasi waxay dhaheen ilaahay na tusi si cadaan aan na tusi waana yani toddobaatankii uu soo xushay markay maqleen maaragtay inuu la hadlayay nabi llaahi muuse calayhi salaam uma wadkuruu xusuusta id goor qultum aad tirahdeen yaa muusa nabi muusow lan nu'mina rumayn mayno laka adiga kuu rumayn mayno xataa nara llaha ilaah ilaan ka aragna ilaahay jahratan cadaan si jahriyan ilaahay u aragna subxaana wa tacaala faakhadatkum waxaa idin qabatay asaaciqatu jacdi iyo biriqdii idin qabatay wa antum idinkoo tanduruuna fiirinaya markay saa yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku riday saaciqa yani saaciqa ilaahay ku riday subxana wa tacaala markaasay kulli uga dhinteen toddobaatankii nabi muuse markaa ilaahay buu markaa u qayliyey nimankii yaa la muuse la ilaah subxaana wa tacaala yani markaasuu ilaahay la qayliyo alla ku yiri subxaana wa tacaala yaa rabbi yani maxaan ku dhahaya reer bani israa'iil toddobaatankiina waa dhinteen waana toddobaatankii akhyaartooda ahaa marka maxaan ilaahu ku dhahayaa reer bani israa'iil markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay wuxuu yidhi wuu soo nooleeyey atuhlikuna bima facala sufahaau mina in hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaa watahdi man tashaa anta waliyuna saasuu nabi llaahi muuse ilaahay baryay subxaana wa tacaala markaasa alla wuxuu yihi uma bacathnaakum waa idin soo saarnay markaad dhimateen kadib yani waa idin soo saarnay buu ilahi yihi subxaana wa tacaala uma bacathnaakum waa idin soo nooleynay min bacdi mowtikum dhimashadiinii kadib ayaan idin soo nooleynay lacalakum waxaad mudantihiin tashkuru ilahina ku shukrisaan subxaana wa tacaala ilaahina ku shukrisaan ayaad mudan tihiin alla subxaana wa tacaala taasna waa nicma ilaahi subxaana wa tacaala wadalalnaa waxaan haraynay calaykum dushiina alghamaama daruurtii markii ay meesha kasoo noqdeena ilaahi subxaana wa tacaala oo dibigii ay caabudeen oo kitaabka towraad lasoo siiyey nabi llaahi muusa kadib waxaa la geliyey tiih ayaa la geliyey 40 sano ah tiiha waxaa loo jeedaa subaxdii bay socdaan meelay u socdaan ma yaqaanaan meelay ka yimideen ma yaqaanaan maanta oo dhan waa soconayaan gabalka markuu dhaco waa seexanayaan kasiinaa iyo dhulkaasay ku wareegayaan meel ay u jeedaan iyo meel ay ka yimideen midna ma garanayaan tiihaasay ku jireen ilaahay baa ku xukumiyey subxaana wa tacaala marka alla wuxuu yidhi wadalalnaa waxaan haraynay xilligaasaa marka ay tiiha ku jireena ilaahay wuxuu ku hareeyey daruuruu ilaahay ku hareeyey subxaana wa tacaala hoos oga dhigay maadaama dhulka uu yahay dhul saxra ah marka ilahay wadalalnaa waxaan haraynay calaykum dushiina alghamaama daruurihii wa anzalnaa waxaan dejinay calaykum dushiina almanna malab cireedkii iyo wasalwa yani shimbirkii la dubay maniga waxaa la yidhahda waa maaragtay waa malabka ama malabka sharaabka laga sameeya la yidhahda salwaagana waa shimbir la solay oo la dubay marka ilaahay baa siin jiray subxaana wa tacaala subaxdiina waxaa loo soo dejin jiray xeero yani malabka iyo hilib shimbireed oo macaano la dubay iyo muufoor jannada laga keenay ayaa la siin jiray subaxdii galabtiina waa la siin jiray saasay cuni jireen marka ilaahay baa ku irsaaqaya subxaana wa tacaala kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaa idinku irsaaqnay kiisa xalaasha ah oo ayibka ah wamaa dalamuuna nama aysan dulmin annaga walaakin kaanuu waxay anfusahum nafsadooda yadlimuuna kuwa dulmiya ayay ahay wallahu subxaana wa tacaala aclam أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
هو الحي القيوم وأتوب إليه.